nin cadaan oo aanu daris ahayn ayaa waxa uu yiri imtixaan ayaan leeyahay markaasi ii soo duceey waxaana ku yiri muxuu ahaa insha Allah markii aan sidaa yiri ayaa uu qoslay maxaa ka bada ayuu yiri insha Allah waxaana ku yiri waa hadal haduu alla ogolaado ayaan ula jeedaa imtixaankii ayuu ku guuleystay waxaana uu ballan qaaday inuu isiinayo gaari markii uu ku guuleystay uu soo wacay ugu yiri hadiyadaadi waa diyaar marka hadiyada ayada ma qaadan karaa muxuu ahaa aniguna markii hore lama jeedin inaan gaal u duceeyo balse waa nin dariskayga oo muxuu ahaa ixtiraam aan u hayay marka diintu maxay ka qabtaa ay leedahay alxamdulillah masaladu waa laba qaybood gaal in loo duceeyo masalana waa hadiyada in la qaato masalada hore gaalka in loo duceeyay xaraan ma qayb sunna weeye hadii hanuun loogu duceynayo nabiga alayhi salatu wasallam markii la dhibay waa kii dhigi jiray Allahumma ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun markii abu loo yimid qawailka qaarkood saxaasay sameeyeen la yiri reed dawso kaleeto Allahumma hadi dawsan waa kii waati bihim dadkeen hanuun loogu duceeyo oo loo bariyay waa sunna wanaagsan nabigana laga dhaxlay sallallahu alayhi wa sallam in duunyadooda loogu duceeyo waxaan dad kale dib ku ahayna way banaanta haduu soo jiray in Ilaahay caafiyo marka laga soo tago gaalka xarbiga ee dagaalka safka hore ku jira haduu jiray Ilaahay inuu caafiyo haduu dhibayo Ilaahay inuu ka qaado way banaanta ولذلك علماء markay tacsida ka hadlayaan gaalada qoyska haduu qof ka dhinto qofka dhintayna uu gaalaha qaraabadiisuna ay tahay dad nool gaala ay yihiin waxa loogu duceeyaa sabirkiina Allah wanaajiyo wax ka khayr badan Allah idinku bedelo laakiin qofka dhintay muslim haduu yahay waxa lagu daraa meedkiina Allah u naxariisto laakiin gaal dhintay Allah u naxariisto lama dhaho laakiin gaalka nool markaan ka hadlayno in loo duceeyay waxaan dambi ahayn loogu duceeyay dib malaha salada labaad hadiyada uu siiyay way qaadan kartaa ama gaari ha noqoto ama wax kale ha noqdo wax xaraan ah ku keeno khamri wax la midan lama qaadan karo laakiin hadiyadan kale waa la qaadan karaa nabiga kaleey salaatu wasalaam hadaya mulugti gaalada ugu iman jirtay baqashiisi cadayd soo hadiyad ma ahayn maariya ummu ibraahima soo hadiyad ma ahayn hadaayaga u yimaada nabigu waa qaadan jiray sallallahu alayhi wa sallam hadii waxan la keenay uusan isagu xaraam ahayn marka hadiyada way qaadan kartaa hadii